Daawadayaal ku soo dhawaada xogo kooban oo aan ku dul istaagi doono taariikhda dalka Nepal iyo xaaladda ka jirta maanta. Intaan u gudagelin warbixintan waxaan idinka mahadcelinayaa inaad bogoy ku taxan tihiin. Sidoo kale intiina nagu cusub ha hilmaamina inaad rukumataan bogan. Haddaba haddii aan ku sii socono warbixinta guud ee wadanka Nepal. Dalka Nepal oo ah dal dhaca Koonfurta Aasiya ayaa ah wadan caan ku ah buuraha dhaadheer ee Himalaya, gaar ahaan buurta Everest oo ah buurta ugu dheer caalamka. Waa dal ay ku nool yihiin ku dhawaad 30 milyan oo qof. Caasimadiisuna ay tahay Kathmandu. Aan ku horeyno taariikh ahaan Nepal waxay ahayd boqortooyo muddo qarniyo badan ah. Sanadkii 2008 Nepal waxay ka guurtay nidaamkii boqortooyo una guurtay jamhuuriyad dastuuri ah. Waxaa lagu yaqaanaa dhaqamo kala duwan, diimo badan oo ay ka mid yihiin Muslim, Hinduism iyo Buddhism, iyadoo ay aaminsan yihiin Lumbini goobta uu ku dhashay Buddha ay weli tahay meel muhiim u ah oo caalami ah. Waa sida ka dhaadhacsane. Dalka waxaa soo maray xasilooni darro siyaasadeed iyo isbeddello badan oo dowladeed, balse weli waa meel ay dunida oo dhan ku soo hirato si ay u aragto quruxda dabiiciga ah iyo taariikhda qadiimiga ah. Waa sidee xaaladda maanta? Maanta Nepal waxaa ka socda xaalad siyaasadeed oo kacsan. Baarlamaanka ayaa la kala diray, waxaana doorasho cusub lagu ballamay in la qabto March 2026 oo ah sanadka xiga. Sushila Karki ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaarihii ku meel gaadhka ahaa, taas oo ka dhigaysa haweeneydii ugu horeysay ee xilkaas qabata. Banaanbaxyo ballaaran oo ay hogaaminayeen dhalinyarada, gaar ahaan kuwa isbedel doonka ah, ayaa furka tuurtay kadib markii dowladda ay xayirtay baraha bulshada. Rabshadahaasi waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac, iyadoo ugu dambeyntii dowladdu ka qaaday xayiraadii internetka. Si kastaba ha ahaatee, shacabka ayaa weli dalbanaya isbedel siyaasadeed iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Isku soo wada duuboo, Nepal waa dal leh taariikh dheer, dhaqan qani ah, iyo muuqaal dabiici ah oo cajiib ah. Inkastoo uu wajahayo caqabado siyaasadeed iyo dhaqaale, haddana wuxuu sii ahaanayaa dal muhiim ah oo ku yaala Koonfurta Aasiya, lehna astaamo ka dhigaya mid caan ka ah dunida oo dhan. Mar kale waxaan idinka mahadcelinayaa inaad bogoy ku taxan tihiin. Sidoo kalena intiina nagu cusub ha hilmaamina inaad rukumataan bogan. Hadduu weynaha weyn idmo